waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis oo aynu daaha kaga rogi doonno qodobo ay ka mid yihiin Somaliland oo iskaashi iyo wada shaqayn la yeelanaysa Masar iyo Geeska Afrika oo isbedelo waaweyn ka dhici doonaan iyo dhinaca kale Ethiopia oo hadda godkeedii biyo ugu galeen cabsi weyn iyo warwar weyn iyo walaacna soo food saaray kadib markay si lama filaan Somaliland xiriir ula samaysatay Masar iyo Ethiopia oo maanta jawaab ka bixisay oo baaq nabadeed iyo wada hadallo degdeg ah markaasi ugu baaqday Masar iyo dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo kulan degdeg la yeeshay maanta wadamada ay wakiilada u joogaan Somaliland kalana hadlay xaaladaha ammaan ee badda cas ka soo kordhay iyo Geeska Afrika qodobo kale ayaan daaha ka rogaya ku soo dhawaada barnaamijka waa hagaag aan ku bilowna barnaamijkee Ethiopia iyo Somaliland saynu ognahay waxa jiray markaa heshiisyo nabadeed oo ammaanka lagu sugayo kaasi oo markaa 30 sano la soo dhaafay ay labadooda iska kaashan jireen laakiinse intuu u yimid xilka uu qabtay Abiy Ahmed arintaasi waxa uu ka qaatay lafti oo si tartiiba ayuu uga sii qaadanayay ka daro dib u Ethiopia waxa ay noqotay xarunta Somaliland dagaalada lagaga soo qaado oo waxaabay ugu tahay hadda dagaaladan socda ee laascaanood ka dhacaya waxaad ogtihiin in jijiga laga soo abaabulay oo Mustafa Cagjar markaasi uu abaabulkeeda lahaa waxaanay Somaliland ka gudbisay dacwado badan arinta wax laga qabto laakiin waxba lagama qaban tu kala ayaa hadana bilaabatay qodobkii labaad oo ah in ay markaa Addis Ababa u soo fadhiisto ugaaska guud ee beeraha Samaroon iyo garaadgala dagaalku oo halkaas ay dagaal cusub ka bilaabeen abaabul ay doonayeen markaasi in dhinaca iyo moogtay saylac gaar ahaan beelaha walaalaha ah ee madaxa la iskugu garaaco Ciise iyo Samaroon Abiy Ahmed afka ay walaalaadiyeen ku yiraahdeen badda saylac baa lagu siinayaa sidii uu farmaajo u ballan qaaday deedna way arkeenay Abiy Ahmed in markaasi bilii ugu dambeeyay uu si bareer ah u sheegay inuu saylac doonayo oo baddaasi ama bad kale oo Geeska Afrika uu yiri waxaan ku doonayaa xoog iyo xeelad ay doontaa haatee bareer buu halkaasi la soo fadhiistayba Somaliland jawaab kama bixin inta waxa ay dhowreysay yacni walaaltinimadii iyo wada shaqayntii inta ilaalinaysa iyo yacni lama filaan bay ku ahayd qodob saddexaad baan idin hayaa imika aynu joogno inkastoo horta dhaqdhaqaaqiya aynu sameeyeen abagaadhayaal iyo loo yeeray xagga dhaqanka yacni iyo dir la isku kaashaday oo garaadgala dagaalka xitaa Addis Ababa iska cararay oo isiri markaas arinkii halkaas siyaasadii waday halka ay fashil kaga yimid laakiin si abagaadhayaashaasi haddana kadib waxa ay Addis Ababa soo fadhiistay ninkii buurmadow oo dagaal sokeeye abaabulaya Addis Ababa soo fadhiistay Ingiriiska intuu ka soo baxsaday oo sidii moogtay sida xirsiba loogu xayray wala waxayiri wuxuu noo soo fadhiistay Addis Ababa halkaas wuxuu wadaa lacagtii markaasi kooxaha gagixisada shabaab kugu soo dhiibeen Daacish soo dhiibtay kooxihii markaasi isirka daarood ku dagaalamayay kuwii hore xitaa basaaska u haayay waa loogu yidhi dawladda siyaad barayno basaas weynaha barnaamijka dambe ayaan xooga kulli ku qaadan doonaa ku daa kaga rogi doona iyadoo ay sheegayaan cuqaashiisa iyo moogtay wax garadkiisu in weligiiba basaas ah moogtay oo dhiiga dadkiisa uu jaqi jiray taa ka soo imika wuxuu Addis Ababa ka wadaa dagaal uu halka ka soo abaabulayo oo markaasi uu doonayo jabhado inuu Somaliland ka dhex sameeyo ilaa hadda Ethiopia waxba kama qabanin waxaana markaasi loo arkaa oo moogtay loo fasiran karaa dadka falanqeeya ee siyaasadda geeska ku galay sheegeen in Ethiopia markaasi ay bareer buu sameynayso waxyaabaan inta soo dacwadood bay Somaliland gudbisay iyadoo markaa istaraatiiji labada wadan wada shaqayntooda iyo moogtay heshiisyadii nabadeed dhowreysay oo xitaa uga dagaalkii Tigraygu intuu socday Somaliland hal askari dhinaceeda xadkeeda lagama gudbin oo Ethiopia looma gudbin waxa uu maada kama geysan iyadoo ilaalinaysa dawladnimada iyo xiriirka wada shaqayneed ee labada wadan hadda waxay noqotay talaabo Somaliland ay qaaday oo lama filaan ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u hambaliyay madaxweynaha dalkaasi Masar
cabdi fataax al-siisi oo ku guuleystay markaa doorashada madaxtinimada dalka Masar. Haddaba baaqo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shalay toolo soo saaray oo lagu baahiyay wasaaradda arrimaha dibadda moogtay page-keeda iyo website-keedaba waxa uu sheegay markaasi inuu aad ugu hambalyeeyo horta doorashadaasi kadibna ugu baaqay in xiriirkii wada shaqayn iyo moogtay saameyntii ay Masar ku lahayd wadamada islaamka hormuudka u ahayd ay soo celiso doorkii geeska Afrika ay ku lahayd ay soo celiso wada shaqaynta Soomaaliland iyo Masarna ay diyaar u tahay Soomaaliland in iskaashi dhinac walba ay yeeshaan oo xiriir toos ah oo markaasi nooc walba noqon kara ay markaasi hadda in labada wadan yeeshaan ay Soomaaliland diyaar u tahay wana markii koobaad ay Soomaaliland Masar baaq u dirto oo ay markaasi heshiisiyo dhinac walba ama heer difaac heer dhaqaale heer walba in wada shaqeeyaan ay markaasi doonayso waxaana jirtay Masar inaan wax saameyn ah ku lahayn geeska Afrika Soomaaliland oo yani din kasto oo Masar ay rabtay in dhowr jeerna xitaa isku dayday in ay saldhig xitaa ku yeelato oo markaas khilaafka ka dhaxeeya Masar iyo Itoobiya loo yahay waxay isku yihiin kibriid iyo gas waa kan abi markaas ku cagajugleynaya doonaya inuu biyo xidheenkaasi biyaha ka xidha Masar oo geed gaaban geed Masar ay u fuushay in markaas sidii ay meel ay ugu aday magtay handidayaduna ay hawleedo ugu wadato oo ay kula halganto ay hesho Suudaan bay markaas marka hadda ay wada yihiin saaxiibtinimo ay ka dhaxaysa inkastoo xaaladda Suudaan ay faraha ka baxday marka meel ay ka soo gashaabay lahayd marka soo dhaweyntan hadda Soomaaliland xiriirka la yeelanayso waxa ay u tahay Masar farxad weyn haddaba turtaba Itoobiya godkeedii biyo ugu galay talaabo degdeg ah oo nabadeed bay ku baaqeen wada hadaladii ay ka xidheen Masar moogtahay xaggaasi arrimaha biyo xidhaanka ayaa turtaba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya soo saartay maanta inay doonayso walaaltinimadii iyo wada hadalkii moogtahay heer nabadeed mar walba waxaan ku celcelinaa bay yiraahdeen nabad inaan markaas la yeelano Masar wada hadalada nabadeed marka halkaasi waxa weeyaan shaxda jasta moogtahay xagga siyaasadda ma kala sheegayo just waxa uu ciyaaray mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad muhiim ah loogu baahan yahay waayo Itoobiya waxa ay noqotay yani meel balaayo walba oo Soomaaliland ku dhacaysa halkaas laga soo abaabulaya abina lama hadlayaba waxa uu isna ka dhigsan tahay ma yeesay la horta bal ka wada hadalo waxyaabo yani taasoo uu arkayo inaan Soomaaliland daciifto xalaal ay tahay jir xubs kama tirinayo ay falanqayaasha ta ku macnaynayaan moogta laakiin hadda inuu qaran jira tahay oo laga cabsan karo oo aan lagu soo degdegi karin ayaa markaas talaabadu mudane Muuse Biixi Cabdi shalay qaaday aad baan runtii ugu hambalyeynaya waayo daciifnimo hadda jiiftidu moogtahay dib weyn baa cid walba ku soo qoslaysaa moogta laakiin markaad samaysatid iskaashi iyo saaxiibtinimo iyo moogtahay wadamo garab aad heshid waxa weeyaan jasta siyaasadda waa lagu xisaabtamaya hadalkaaga wala dhageysanaya laguma soo degdegayo xitaa xuduudaha laguma soo degdegayo marka talaabadaas runtii aad ayaa hambalyo u diraya mudane Muuse Biixi Cabdi u qaaday dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa waxa uu sameeyay kulan degdeg ah oo iskugu yeeray wadamada beesha caalamka ee safiiradu ka joogan marka Soomaaliland dhamaan safiiradii joogay marka Hargeysa ayuu iskugu yeeray wadamada caalamka wakiiladoodii waxaana shirkaasi markaasi lagu lafagurayay xaaladda hadda ka taagan badda cas iyo ammaan taasi oo markaasi iskaashi inay sameeyaan buuxa tahay wadamadaasi moogtay saaxiibka la Soomaaliland iyo moogtay wadamada caalamku si markaasi looga hortago khatarta hadda badda cas ku soo wajahan markaasi kooxaha Xuutiyiinta iyo kooxaha ammaandarada halkaasi ka wada Soomaaliland doorkeeda ka ciyaaraysa marka la eego oo kooxaha argagixisada moogtay hadda waa ku noo sheegay shalay toole wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin oo kii xaqiijiyay in la qabtay kooxo moogtay laashash watay hub ku watay iyo hub ay wateenba kuwaas oo burcad iyo moogtay badeednimadii iyo maraakiibta in afduuban doonayay ciidanka badda Soomaaliland waa qaar hadda howlgalkoodu markaas aad u shaqeynayo oo nooc walba oo khatar ah ha ahaato burcad badeed argagixiso markaas la dagaalamaan mar walba diyaar u ah